Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kilibkan yar waxaan ugu talagalay in ardayda aan uga caawiyo sidii ay ku diyaarsan lahaayeen PowerPoint sida ugu dhaqsiyaha badan iyagoo ku daraya qoraallo iyo sawirro. Marka hore soo fur application-ka PowerPoint. Kadib waxaad furi doontaa file, waxaad dhihi doontaa new, waxaadna dooran doontaa mid ka mid ah themeska ama farshaxanka kuu muuqdo. Farshaxanka qaarkiis waxaad u baahan tahay in uu laptop-kaaga ku xiran yahay internet si aad u soo degsatid. Qaarna waa offline oo uma baahna wax internet ah. Marka hore soo deji midka aad jeclaatay inaad isticmaashid. Waxaad ka dooran kartaa suggested sites sida presentations, themes, educations, charts, diagrams, business, infographics. Dooro midka ku cajabiyey ama design aad doonaysid inaad u isticmaashid presentation-kaaga. Text box walba waxaad gelin doontaa qoraalka ku habboon. Tusaale, ciwaanka oo kale waxaad gelinaysaa salaanta oo kale assalaamu calaykum. Qaybta hoose ee qoraalkaas waxaad ku beddelaysaa magaca qofka soo jeediyaha barnaamijka, presenter ama soo jeediye. Sidoo kale waxaad samaysan doontaa qodobadii aad ka hadli lahayd. Tusaale, qodobada aan ka hadli doono qodobka koowaad, qodobka labaad iyo qodobka saddexaad. Mid walba waxaad gelisaa barnaamijkii aad uga hadli lahayd. Presentation-ka aad soo jeedinaysid inuu qodobaysnaado, sidoo kale inuu wato sawirro iyo nambaro qurux badan iyo colors. Waxaad ku soo jiidan doontaa dadka aad u soo jeedinaysid presentation-ka iyagoo aad iyo aad ula dhici doono qodobada aad u soo koobtay. Mar walba waxaad qurxisaa slides-kaaga si ay u noqdaan kuwa ugu quruxda badan slide-yada la soo jeedinayo adigoo adeegsanayo dhanka farshaxanka, insertiga, design-ka, colors-ka, noocyada kala duwan ee farta iyo noocyada kala duwan. Waxaad u baahnaan doontaa sawirro. Waxaad aadaysaa Google, waxaad ku qoraysaa shayga aad u baahan tahay magaciisa, kuu soo bixi doona image aad leedahay, image-kaad ku dhufanaysaa. Kadib right click ayaad leedahay, copy image ayaad leedahay. Waxaad imaanaysaa halkaagii hore, waxaad dhihi doontaa right click paste ama Ctrl V ayaad dhihi doontaa. Sidaas ayuu sawirkaaga ku dhagan yahay. Kadib waa align garaynaysaa oo dhinacyada ayaad ka saxaysaa. Arrimaha bulshada waa ku soo darsanay. Kadib waxaa ku soo darsanayaa sawir arrimaha waxbarashada. Right click isagana copy, tan waxaan ku leeyahay paste. Si la mid ah sawirrada sidaas ayaad u soo degsan kartaa adigoo saxaya dhanka format-ka ama noocyada uu ekaan karo sawirka iyo qaabkiisa. Waa format-ka. Sidaan ognahay, Google waa mid ka mid ah kuwa ugu saameynta badan uguna caawinta badan wax raadinta. Marka sidaas darteed waxaad ka heli kartaa sawir walba ama muuqaal walba adigoo mar walba raac adeegsanaya keywords ama shayga wax ka matalaya ama si lagu raadin karo. Dhammaan sawirrada waxay ku xiran tahay skills-ka aad u leedahay ama awoodda aad u leedahay inaad isticmaasho PowerPoint-ga. Waxaa aad iyo aad u qurxin kartaa wax walba oo sawir ah adigoo ku soo darsanaya sawir walba. Hadda waxaan soo koobiyay qoralladan waa koobinayaa, waa highlight garaynayaa Ctrl C, waxaan tagay halka waxaan leeyahay Ctrl V. Kadib waa edit garaynaysaa ama size-ka ayaad kordhinaysaa qoraalka adigoo isticmaalaya Ctrl iyo greater ama Ctrl Shift greater calaamadaas. Iska soo gabagabay marka presentation-kaaga waxaad leedahay finish. Sidoo kale waxaad raacinaysaa mahadcelin.
Si aad soo bandhigtid PowerPoint-gaaga ama presentation-kaaga, waxaad taaban doontaa F5 ama waxaad ku dhufan doontaa slideshow. Kadib waxaad dhihi doontaa from beginning. Kadib waxaa kuu soo bixi doona slideshow-gaagii oo kadib dadkii aad usoo present gareyn doontid. Intaas nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.